فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون waxaan ka qaadaynaa haddii la yidhaahdo ka bilaabaynaa suuratu tuur aayadda 29 waxaynu ka soo baxnay nicmada ilaahay uu siiyey ahlu jannaha iyo sheekada ahlu jannaha dhex maraysa aakhare marka la tago qaybo ka mid waxaa kaloon soo barannay ahlu naarka laftooda waxbaa laga soo tilmaamay aayadahani waxay connection la leeyihiin oon soo baranay habeenka dhaweyto nin la yidhaahdo Jubayr ibn Mut'im oo saxaabadii nabiga ka mid ah calayhi salaatu wassalaam intuuna ninkaasi soo muslimin ayuu madiine soo aaday oo uu soo safray wuxuu u socday safarkiisu wuxuu ku saabsanaa dagaalkii Badar markii Quraysh rag badan lagaga qabtay ayuu nabiga soo aaday si uu ragga ugala hadlo oo loogu sii daayo dadkaas wuxuu magaalada Madiina yimid ninkani salaadii maghrib oo muslimiintu ay tukanayaan oo nabigu masaajidka dadka ku tukanayo oo uu akhrinayo suuratu tuur ninkaas wuxuu ahaa nin caraba Jubayr ibn Mut'im waliba nabiga way isu dhawaayeen calayhi salaatu wasalaam intuuna muslimiinna way ahayd laakiin uu garanayay carabiga iyo quraanka macnihiisa oo qiraa'ada macnaheeda si fiican buu fahmay sidoo suuradii u dhageysanayay wuxuu markuu marayo nabigu calayhi salaatu wasalaam aayadahan markuu akhriyay آياتنا ندان أخرين فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين ما لها مركو نبيكم مرأيه وحليه جبير بن مطعم هل كان مركو مرأيه كاد قلبي أن يطير qalbigaygu wuxuu ku sigtay inuu duulo yani siday aayaduhu u influence gareeyeen ee maskaxdiisa inspiration bay ku sameeyeen way galeen way bedeleen aad bay aayaduhu ii sameeyeen buu yani raad adag bay kaga tageen way macnihi buu garanaya halka waxaan ka garanaynaa quraanku markuu si dhaba ku saameynayo waa markaad macnihiisa garanayso waa muhiim arrintaas haddaadan quraanka macnihiisa garanaynin akhriskiisa ajir waad ka helaysaa laakiin wax loola jeeda ma fahmaysa wax loola jeeda sidaa darteed baa Allah tabaaraka wa tacaala nabiga wuxuu ku leeyahay calayhi salaatu wasalaam wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyina lin-naasi ma nuzila ilayhim waxaan kugu soo dejinay quraanka si dadka aad ugu cadayso wixii loo soo dejiyay nabigu dadka wuxuu u cadeeyay calayhi salaatu wasalaam laba arrimood quraanka uu baray lafdigiisa macnihiisana uu baray sida Sheekh Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi wa ghayruhu ilayhin nabigu lafdiga quraankana uu baray macnahana uu baray muslimiintii hore maynan aqoonin quraan kaliya uu lafdiga la iska barto la isla joogo oo la iska joogo markaas quraanka marka lafdigiisa barato waa inaad macnaha barata haddii kale you don't even know waxa quraanku ka hadlayo waxa loola jeeda ma garanaysid ما فهميsid ba quraanku wuxuu ku leeyahay do this don't do this so how you can understand hadaadan garanaynin ba meaningki quraanku wuxuu ku leeyahay sidan yeel this is halal this is haram this is bad this is right so if you don't understand all this stuff so how can you understand the Quran ma garanays waa muhiim marka inay dadku quraanka bartaan ومهم معلمين تدوكسي دغيا ilmaha inay bayska islaamka iyo tafsiirka hoose ay baraan tawxiidka wuxuu Allah leeyahay azza wa jal fadhakir nabiy wani alayhi salatu wassalam dadka wuxuu sheeg oo wani oo wacdi
فما أنت أدوغ متهد نبي قال الشيء عليه الصلاة والسلام بنعمة ربك نعمة ربك كو قال السبب تيذا بكاهن فالية متهد ولا مجنون مذوالا متهد مذوالا وينو قرنين لكن فالية محلو لجيذا ويعطيك تسمى ومذوالا وينو قرنين قفكواس ووالي هاي دي ليلة هذا وينو قرنين يا قرنا يا فالي مبارك مقرنا سفالي oo qofka future-ka ka warrama wuxuu leeyahay bari waxa sa dhacaysa adiga muxuu ahaa markaad guursato wiilal baad dhali doontaa adiga gabdhaad dhali doontaa adiga rich baad noqon doontaa adiga poor baad noqon doontaa adiga balaaya kugu dhici doontaa adiga you will be successful waxaas uu ka sheekeynay who told you yaa u sheegay waxaas kaasoo kale waxaa la yidhaahdaa kaahin waa kuwa mustaqbalka iyo ka warrama waxyaabahaas soo arrintaas maxay noqonaysaa marka xukunkeedu qofku inuu waxyaabaha ka sheekeeyo oo yiraahdo waxa dhacaya kana dhici doona balaaya rugman doonta waxaas iska daa qofka u taga if you visit that guy nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam qofkii booqda ee qofka u taga ee u camira 40 days your prayer will not be accepted by Allah azza wa jalla salaada qofkii u taga qofka balaayada sheegaya 40 days salaadiisa la aqbali maayo هابوت كالفتي سكور حرام إلهي بقى غيب كي وحيابها دعدون إلهي بقى كشاكين كر إلهي بقى قرني مركب واحد النبي قال له عليه الصلاة والسلام كاهن متي قف وحشك شيغا وفي يشرك كور رما متي ولا مجنون مدوار متي سيدا سالقولي النبي عليه الصلاة والسلام maxaa sidaa loo leeyahay waxaa loo leeyahay goormay quraysh bilaabeen inay nabiga ku dhahaan waa kaahin iyo waa majnuun iyo propaganda inay nabiga ka fidiyaan goormay bilaabeen markii rasuulka ilaahay ka dhigay ee waxyiga lagu soo dejiyay markaa ka hor waxay dhihi jireen muxamedul amiin way jeclaayeen marka ilaahay wuxuu leeyahay before the Quran way ku aaminsanaayeen oo way ku rumaysnaayeen oo way ku jeclaayeen markuu ilaahay quraanka kugu soo dejiyay ya waxay kugu dhaheen kaahin shaacir majnuun soo anso ilaahay marka wuxuu leeyahay quraanka ilaahay sababtiisa iyo waxyiga lagu soo dejiyay sababtiisa kuma adan noqonin kaahin iyo shaacir iyo majnuun because markii hore way ku rumaysnaayeen oo way ku jeclaayeen markii quraanka aad heshay ee nabiga laga dhigay baa waxay dacaayad iyo kaahin iyo majnuun kugu sheegeen marka quraanku sabab uma aha yani laguma waasha quraanka majnuuna laguma noqdo xikmad iyo waxa laga helaa wisdom iyo aql fadakir nabiga dadka waanadu waa inaad qofka wax u sheegto advice iso la waaniso la taliso fama anta adigu matihid nabiga la sheegay alayhi salaam bi ni'mati rabbika ni'mada rabbiga sababteeda بكاهن مثل فالية متي في صوماليا فالية لنا مثل وحكى هذا في شركة كورم فالية متي ولا مجنون قف ولا نمتي قف ولا يقف فالية متي النعمة ذا مركز الشيء يا النبي قال لي وامح وحي يا قرآن تاسع النعمة أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم يقولون وحي لين وحي أورانيان قريش بالغا ورمايا النبي تشالنج دير باي لغلين وحي كو أورانيا النبي شاعر وغبيا ومد غبيا waxa uu sheegaya waa poetry bay dhihi jireen waa gabay isna waa shaacir waa gabaya waxay dhaheen natarabbasu bihi waxaan la sugaynaa rayb almanuuni geerida manuunku waa dhimashada musiibadeeda isaga iska dhiman doona ha iska jooga at the end of the day uu dhiman doona he will die saasay dhihi jireen markay sidaa leeyihiin uu dhiman doonaa waa markay ka samreen waa markay challenge gareyn kari waayeen ee nabiga waxba ka qaadi waayeen calayhi salaatu wasalaam baa waxay dhaheen natarab waa gabayaa waa shaacir hadduu shaacir yahayna oo waxa uu sheegaya uu gabay yahayna natarabbasu bihi waxaan la sugaynaa rayb almanuuni geerida iyo dhimashada musiibadeed u dhiman doona sidaasay dheh labada arrimood ba ilaahay baa ka jawaabay
horta qur'aanka ay shicirka ku sheegayaan iyo gabayga ilaahay muxuu yidhi wamaa callamnaahu shicra wamaa yanbagii lah waxa nabiga la baray gabay maaha umana habboona shaacir maaha markay leeyihiin wuu dhimanayaana haddee iyagu mayagaa joogaya waxaa la yidhi innaka mayitun wa innahum mayituun iyaguna way dhimanayaan qof adduunka iska joogay oo weligii forever joogaya ma jiro adiga haddaad dhimato iyaguna way dhimanayaan wamaa muxamadun ilaa rasuulun qad khalad min qablihi rusul afa in maata aw qutila inqalabtum calaa acqaabikum waxaa lagu yidhi kullu nafsin daa'iqatu lmowt soo geeridu waa wax qof walba u maray rayba almanuun natarabasu bihi waxaan la sugaynaa rayba almanuun bay dhaheen dhimashada musiibadeeda iyo dhibaatadeeda waxaa kaloo la yidhaahdaa rayba almanuun timeka iyo waktiga balaayooyinka wareega ee dhacaya natarabasu bihi waxaan la sugaynaa rayba almanuuni zamanku waa timeka iyo waktiga musiibooyinkiisa musiibooyinka dhaca ee adduunka ka dhaca taasaa ku dhici doonta bay dheheen nabiga sheegeen calayhi salaatu wasalaam waxaa nabiga lagu yidhi qul waxaad ku dhahdaa u jawaab tarabasuu suga waxaad igu sheegaysaan inaad leedihin waxaasaa ku dhici doona suga fa innii aniguna macakum idinka la jirkiina min almutarabisiina kuwa sugaya baan ka mid ahay idinkuna suga waxa igu dhacaa ana I will wait waxa idinku dhaca what happened to you idinkana iska suga anna waan sugaya soo ilaahay baa ina kala saaraya tarabasuu idinku suga waxa igu dhaca fa innii macakum min almutarabisiina anna waan sugayaa oo waxa idinku dhacan sugaya that means ilaahay baa kala saaraya tabaaraka wa tacaala ilaahay baa kala saaraya qul waxaad ku dhahdaa nabigow tarabasuu suga oo balaayadaad sheegaysaan ila suga fa innii macakum aniguna idinka miciina macadi waa with oo kale macakum idinka miciina yani with you min almutarabisiina kuwa sugaya baan anna waan sugaya waxa idinku dhaca so idinkuna isuga anna idin suga then ilaahay baa ina kala saaraya oo ina kala xugminaya am ta'muruhum ahlaamuhum bihada am hum qawmun taaguun am yaquuluuna taqawalahu bal laa yu'minuun ilaahay wuxuu yidhi am ta'muruhum ma waxaa faraysaa ma waxay amraysaa axlaamuhum caqliyadooda ma caqligooda wuxuu farayaa bihaada arrinkaas warkaas am hum amtaasi waa bimacnaa bal hum iyagu qowmun waa dad taaguuna oo xadda tallaabay taaguuna yani xaddii bay tallaabeen oo they cross the border yani waxaa laga wadaa khalad weyn bay galeen maxaa loola jeedaa ma caqligoodaa faraya waxaas waxa la sheegaya laleeyahay caqligoodaa faraya waa maxay waxa weeye horta quraysh carabtu aad bay they used to respect the quraysh clan they used to respect them well aad bay u respect garan jireen oo u ixtiraami jireen waxay dhihi jireen kacbada quraysh baa deganayd waxay dhihi jireen waa niman very smart caqli badan wan wanaagsan fiican maskax badan marka waxaa la dhihi jiray cuquulul carab ama axlaamul carab maskaxdii carbeed baa la dhihi jiray dadkii intelligencega carab u ahaa ee smartka ahaa baa quraysh lagu sheegi jiray markaas waxaa la leeyahay nimanka caqli inay caqli badan yihiin isku sheegaya hadalkoodu waa kind of contradicted uu isburinaya because mar waxay leeyihiin maxamed wuu waalan yahay marna waxay leeyihiin wuu gabaya war ma nin waalan baa gabaya nin waalan gabay iskuma toosin karo waa qof maryaha dhigtay oo aan waxba garanaynin weeye oo u baahan isaga in la qabto soo mar waxay leeyihiin wuu gabayaya mar waxay leeyihiin muxuu ahaa wuu waalan yahay mar waxay leeyihiin waa kaahin marka hadalkoodu wuu iska hor imanaya waa hadal contradictory oo isburinaya wey midda labaad hadduu gabay yahay iyagaba 100 gabayaa baa ku jirtay may quraanka kala keenaan idinkaba gabayaal baa idinka baxma keentan isagoo kale hadduu gabaya marka waxaa lagu leeyahay am ta'muruhum miyay amraysaa axlaamuhum caqliyadoodu ma caqligooda amraya bihaada hadalladaas waa gabayaa waa kaahin wuu waalan yahay ma caqligooda waxa u sheegaya aw caqligii badnaa ay sheeganayeen waa contradicted ka ugu hadlayaan ilaahay baa sheegay wuxuu yidhi am hum bal hum iyagu reasonku waa ka qowmun waa qolo daaquuna oo xadgudbay oo yani wadadii saxda ahayd ka baydhay oo xadgudbay am yaquuluuna taqawalahu bal laa yu'minuun falyaأtuu bixadiiثi milihi in kaanuu saadiqiin am yaquuluuna waxay leeyihiin waa hadalladoodii qayb ka mid a taqawalahu qur'aanka muxamed baa been abuurtay taqawalahu isagaa iskaga hadlay oo iska samaystay oo la yimid muxamed baa qur'aanka iskaga hadlay
يعني سجى مسكح دي سفر from his own mind مسكح دي سوكا كاني تقوله وإسكجا هاللي يعني واحد لو جسود الجي أو وحي ما سجى إسكجا هاللي بيليه سجى بين أبورتي سجى سمايستي إلهي وحول بل لا يؤمنون مرة ما يسنا وحا وجيني وإيمان الآن قف كدو إيمان لا يوحش هذا بل لا يؤمنون مرة ما ينهيان قرآنك هدون الإيمان شرنا وحبك حشون معيا إلهي وحول فليأتوا هكينين بحديث ور ومثله قرآنك وكلا إن كانوا صادقين هذا يرون شيئا هذا يرون شيئا قرآنك وكلا هكينا سببتها نبي محمد وعرب يقولون وعرب سكن waxay dhahan waa nin gabaya oo shaacir ah iyagana way ka buuxaan gabaya marka haday sidaas tahay oo arab ay yihiin de quraanka kala ha keenay hal yimaadeen markaas intay isu tageen bay quraanka kala keeni waayeen quraanku challenge-gii uu arab ku sameeyay quraysh waxay ku tusaysaa inuu yahay mucjiza min Allah waa miracle from Allah azza wa jalla markii uu horeysay waxa la yiri quraanka kala keenay قل إن قرآن كوكل هلا كان عليه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبد قرآن كوكل ويكين واي قرآن كوكل مركي كين واي واحد يقول أوكي واحد كانتان طبعا صورة ذو قل فأتوا بعشر صور مثله طبعا صورة ذو قرآن كوكل كان ويستمعين واي واحد هدنا فأتوا بصورة من مثله هل صورة ذا هو قابل نعطيني يقول والله بل كان عليه ويكين وايا مركزها waxa lagu yiri fa in lam taf'alu walan taf'alu hadayda samayn kari weydeen you will never do it mana samayn kartaan mustaqbalka future سمعت مركزها waxa la yiri qul in ijtama'at al-ins wal jinnu ala an yatu bimithli hadha al-qur'an la yatuna bimithli walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahiran haday iscaawiyaan oo isu tagaan oo isu hiliyaan oo isu sabood gareeyaan oo aqligooda iyo maskaxdooda iyo gabaygooda isu keenaan quraanka kale ma keeni karaan halkaas ay ku samreen marka nin la yiraahdo musaylamatul kadhaab oo banu xaniifa ka dhashay yaa wuxuu yiri okay ana keenay quraanka oo kale horta nabi baan ahay nabina uu sheegtay niman banu xaniifa la riyaad iyo dhulkaas degi jireen ardul yamaama nimankaas uu ka dhashay markaas waxay dhahay wuxuu yiri aniga rasuul baan ahay ilaahay baa soo diray nabi baan ahay qabiilkiisu marka way ogaayeen inuu beenaala yahay musaylamatul kadhaab baa la dhigi jiray musaylamay beenaalaha waxay yiraahdeen وان أجنهي محوها أن مسيلمة كذاب مسيلمة إنه بين عليه ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر بين علىها غير ربيعة ويعني يجا كل شيء بان كتش على هاي بينهن فرن لوجا متك فرن تشيء جاي غير مضر النبي محمد بشيء جاي نمن هذا قبيلة بدنه ماشى صومالي كشبه هذا إنسان يعني قبيل كوض محوها إلا عرفت وحي لها يندقن ليلة هذو وهل أنا إلا من غزية إن غوض غويت وإن ترشد غزية أرشدي نبقى قبي صوبته كتري وحي قال بي صوت عن لين عسنا هو صوالي كلا صوت نمان عربها قال صوت عن مركي قال صوت عن بواحد قال أن قيب سنه دعوة حق يعني وربري بيسمين قال بيتك لها كسوقاتين باي فورس دعم إذن هذا ما قرن سن عيالك لن يرضى xoog bay ku soo qaateen by force bay dadkooda kaga soo qaateen markay dhaxda marayaan waa waqtigii hore gaalada carabta markay dhaxda marayaan baa waxay dhaheen suggestion bay soo jeedeen waxay dhaheen okay geel aan qaybsan why because waxay ka baqayeen haday reerahoodii tagaan dad baa ka bariyo oranaya wax naga sii aan geela wax ka soo qaadin markaas uu la tiriyo wuxuu yiri nimayo geela hadaan qaybsano hadda aan ku mashquulo geela qaybsigiisa time badan bay inaga qaadan nimankii geela lahana way daba socdaan geelooda inay soo dhacsadaan soo inta aan qaybinayna la inagu soo gaaraya soo aan reeraheeni tagnoodan aan qaybin haddii kale intaan qaybinayna baan nala laynaya waxay dhaheen no wallahi intaan tagnay inaan nala qaybsanaynin geel waxay dhaheen hadhow rag badan baa wax naga sii odhanaya halkan aan ku qaybsananaya hal istaago inta qaybsanayaan tan anaa la kan anaa la kan anaa la lahaa baa raggii geela lahaa afarta dhinac ka mareen ما قيل بلغالا خطروي أفرت إن عندك كم مرة باقمت لو جوك سيدنا ما كيجيلين ولا قات أضيق هرت ثلاثة سويت هذه أضيق ضغط دابه هنيك وضغط صنابها أضيق ثلاثة سويت هذه ثلاثة لقد ديدي مركي ثلاثة لقد ديدي أنتوا كنا حبايب وجيد هالكاس إسكافرست
wuxuu eegay lawani waa yarago warigi geel dhici jiray oo uu garanaya waxa soo socda marka markii uu arkay wixii dhacay yuu baxsaday lafihiisii wala baxsaday oday markuu dhaxda sii marayay buu gabay tiriyay marka gabaygi baa marka waxa kamid ah amartuhum wa amri bimun'arij liwa falam yastabinu rushda ila dhuha alghadi shalay baan anigu ra'yigayga iyo muxuu ahaa taladayda dhiibtay buu laakiin maanta la fahmay aqligu marka waxa weeye war shalay hadii lagu diiday maxaad u tagi weyday buu gabay kaga jawaabay marka shalay maxay isaga tagi weyday maxaa u sugaysay markaasuu yidhi hal ana ilaa min ghaziyata in ghawad ghawaytu wa in tarshud ghaziyatu arshudi anigu waxaan nin reer ghaziya waa qabiilkiisa hadday fiican yihiin waan la fiicanahay hadday xumaadaanna dee waan la xumaan xageen kaga tagaa tolka marka taan ka wadno waa midaas nimankay marka reer Rabiica waxay dhahan anaga ka iyaga beenaalaha baan ka jecelahay ka reer Mudar wuxuu yidhi quraan baan hayaa anna quraan baan keenaya okay waxa la yidhi keen markaasaa wuxuu yidhi yaa difdacu hal anta ilaa difdacun naqi maa tunaqi la sharaaba tamnaciina wala almaa tagdarin wuxuu yidhi rahow baalka raha la yidhahda buu sheegaya horta rahun baa tahay raha baa tahay raha waa baalkan yar ee qaylqayliya muxuu ahaa frog ee dhawaaqa wuxuu yidhi lalmaa tagdarin horta weligaaba qayle ma kol baad biyaha dhoobayn in laga cabana dadka u diidaysa nimankii uu ka dhashay waxay dhaheen war nin wareersan baa tahay yaan lagu maqlina waxay dhaheen war yaan lagu maqlina war waxaasi quraan mee annaga ku maqleen mar dambe waxaan ha sheegin bay dhaheen carab ha dhex geyn because carabtu way garanaysaa waxaan inuu yahay waxaan jirin marka waxay dhaheen annaga ku maqleen mar dambe yaan lagu maqlin marka way ku fashilmay ilaahay wuxuu leeyahay falya'tuu ha keeneen bixadiithin war oo midlihi quraanka oo kale quraankan oo kale ha keeneen in kaanuu saadiqiina hadday run sheegayaan bal hadday run sheegayaan hal aayadii hal suurada ha keeneen they cannot do it ma samayn karaan am khuliquu min gayri shayin am hum alkhaaliquun am khalaqu الsamaawaati waalarda bal laa yuuqinuun am cindahum khazaa'inu rabbika am hum almusaytiruun aayadahani waxay aad challenge ugu samaynayaan dadka atheistiga aheen ilaahay rumaysnayn waxba aaminsaneen mulxidiinta bay aayadahan maskaxdooda la hadlayaan waxay la galayaan debate qofka aan rumaysnayn ilaahay inuu jiro wuxuu ilaahay leeyahay am khuliquu miyaa la abuuray min gayri shayin iyadoo shay abuuray uunan jirin oo khaaliqa ma iyadoo wax abuuray uunan jirin bay automatically iyagu isaga samaysmeen ma jira shay automatically isagu isa sameeyo iska abuurma ma jira shay iska samaysmo is abuura ma jira maya taasi ma dhacayso waa qodob iyada oo wax abuuray uunan jirin miyay iska abuurmeen wey waa maya midda labaad am humul khaaliquuna mise iyagaa naftooda abuuray iyagu nafteeda miyay abuureen oo qof odhan kara anaa iscreate gareeyey oo is abuuray ma jira iyaduna waa maya haddayna naftooda abuurin am khalaqu الsamaawaati samaawaadka ma iyaga abuuray iyo walarda dhulkii samada ma iyaga abuuray haddayba naftooda abuuri kari waayeen ma samayo dhul bay abuuri kara maya bal laa yuuqinuuna ma yaqiininayaan buu ilaahay ma rumaynayaan oo ma yaqiininayaan qur-aan wuxuu leeyahay allah dadka atheistigeen ilaahay rumaysnaynaan waxba aaminsanayn dooda aad la gelayso waxa weeye waa one of three things arrintu waa saddex mid laba waa impossible soo midka saddexaad baa wuxuu yahay qasab midi waxa weeye waxyaabaha adduunka ku nool shay walba inuu iyagu ay is abuureen by themselves oo shay walba uu abuuray naftiisa inuu abuuray adigu aad is abuurtay isagu is abuuray iyadu is abuureen gurigu is dhisay diyaaraddu iyadu isa samaysay doontu isa samaysay dhulku isagu isa sameeyey cirku isa sameeyey mikrofoonkaasi isagu isa sameeyey smartphone-ku isagu isa sameeyey masaajidku isagu is goglay oo is habeeyey shay walba automatically by itself inuu isagu isa sameeyey taas no one can say waa sax waa wrong soma waa khalad gaal iyo islaam qof odhan kara anaa is abuuray oo isa sameeyey ama mikrofoonkan isagaa isa sameeyey ma jiro okay masalada kale waxa weeye qof odhan kara miyaa jira am hum taasi marka waa am khuliquu min gayri shayin shay abuuray iyada oo uunan jirin miyay iska abuurmeen tan labaadi waxa weeye am humul khaaliquuna mise iyagaa is abuuray
oo shay walba isagaa naftiisa sameeyey labadaas marka midna suuragal maaha shaygu inuu iska abuurmay automatically oo si random isaga samaysmay iyo inuu isagu isa sameeyey labadaas midna ma dhici karto ta saddexaadi waxa weeye ee qasabka inuu jiray shay wax abuuray waxaan oo dhan makhluuqan adduunka jooga cirkan iyo dhulka iyo badaha makhluuqan samaysan iyo dadka khaaliq abuuray inuu jiro taasaa qasab khaaliqii abuuray ee sameeyey kaasaana dilaya hadhowna isagaa soo noolayn doona soo bixin doona waa aayadaha cajiibka qur-aanka kariimka يعني dadka atheistigeen ilaahay ba rumaysnayn waxba aaminsaneen sida adag aqliyan ula dooday sida aayada quraanka law kana fiihima alihatun illa allah la fasadata laba ilaah haday jiri lahayn adduunku uu dhamaan lahaa uu fasaadi lahaa wala islayn lahaa sababta wadan laba madaxweyne yeelan kara ma jiro hal state baan laba governor yeelan kara hal school baan laba maamulo yeelan kara adduunka sida ku socda laba ilaah miyuu yeelan kara waa may hal ilaah baa abu waxa la yiraahdaa al-imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi baan meelka akhriyay ma aqaan inay qisadu ka sugan tahay in kale nin qolyahan atheistigeen ilaahay ba rumaysnayn mulxidiinta ba Abu Hanifa wuxuu ku yiri khalqigan iyo makhluuqan jooga ilaahay ba khalqay oo abuuray markaas wuxuu yiri anna waxbaan abuuri karaa gaalkii baa oranaya aniga xataa waxbaan I can create something markaas wuxuu yiri ma waxbaad abuuri kartaa ha okay wuxuu yiri proof garee ninkii wuxuu soo qaaday hilib cad hiliba oo weyn oo meel yaala ayuu soo gaday intuu dhulka qoday buu cadkii ku xabaalay cadkii buu ku aasay dhulkii after 1 week buu Abu Hanifa kaalay after 1 week maxaa dhacay markii hilibkii marka meesha laga soo saaray maxaa loogu tagayaa hilibka maxaa ku dhalanaya tixriya insectis iyo qashin baa ku dhalanaya markaas wuxuu yiri Abu Hanifa hilibka markaan meesha ku ridayay tixrigan iyo waxaas miyay ku jiraan meesha markaas wuxuu yiri maya hadana abuuray buu anaa sameeyay tixriga iyo waxa ku dhaxdashay hilibka ana abuur Abu Hanifa wuxuu yiri okay ma makhluuqaagi baa waxan hadda markaas wuxuu yiri ha markaas wuxuu makhluuqaagu waa imis hada ma tixribu tiriyay ninkan markaas wuxuu I don't know ma garanayo markaas wuxuu yiri how imsa female imsa male markaas wuxuu ma garanayo goormay dhiman doonaan markaas wuxuu ma garanayo hadda zaad ku abuurtay fabuhita alladhi kafar halkii buu ku wareer qisa kale Abu Hanifa laga wariyay waa ay jirtaa oo niman atheist oo ilaahay ba rumaysnayn buu damcay debate inuu la galo Baghdad wabiga nahru Dijla oo Baghdad mara dagtiisa dhinaca kale ba balantu ahayd Abu Hanifa marka kasbu u dahay balanti markuu u tagay isagoo leeyda ayaa wuxuu ku yiri oniyo muslim baan ahay baa lahayd oo beentu waa xaraan maxaad u soo daahday balanti maxaad u soo daahday markaas wuxuu yiri wabiga markaan soo goynayay baa doontii aan ku soo karas gareyn lahaa baan waayay markaas wuxuu hadda maxaad ku soo gudubtay wuxuu yiri saan isaga taagnaa geedihii wabiga dushiisa ka taagnaa baa intay go'aan oo xarka isku xidhxidheen oo doon iyagu bay automatically iyagu is sameeyeen baan ku soo gudbay markaas wuxuu yiri miyad waalantahay miyad waalantahay markaas wuxuu yiri why markaas wuxuu yiri how comes doon inay is sameeyaan anagana fariiba naga mudxay every single day bilay nagu qaadata inaan boot sameeyno iyo doon adigana waxaad leedahay 1 minute by self iyada geedihii intay is sameeyeen bay doon iska sameeyeen markaas wuxuu yiri aduu miyad waalantahay cirkan iyo dhulkan iyo adduunka sida ku socda ayaa waxaad leedahay isaga is sameeyay ninkii markaas soo miirsaday marka ma ogtahay marka gaalada lala doodayo geedka ma gaari karaan sababta waxoodu they have nothing sida nabi ibraahim soo xusata ninkii gaalka ahaa markuu yiri alam tara ila alladhi haaja ibraahim fi rabbi ana ta'awul mulk nabi ibraahim wuxuu ku yiri rabbi alladhi yuhyi yumiit rabbigay waa midka waxna nooleeyo waxna dila nabi ibraahim muxuu yiri gaalkii muxuu yiri qaala ana uhyi wa umiit ana waxbaan dilaa waana nooleyn karaa nin laba nin intuu soo qabtay midna dilay midna wuxuu yiri oraskata soo martid buu ana midna waan dilay midna waan daay soo ana waan dili karaa waana nooleyn karaa nabi ibraahim meel gaaban buu hadalka ka soo qabtay wuxuu yiri fa inna allaha ya'ti bi-shamsi min al-mashriq faati biha min al-maghrib okay haday saastay wuxuu yiri ilaahay qorraxda subaxii wuxuu ka soo bixiyaa from the east adiga west subaxii ka soo bixi fabuhita alladhi kafar it's done markaad aragto debate-ka quraanka sida uu gaalada ula dooday suuratu shu'ara akhri nabiyullaahi muusa iyo markay fircoon debate-ka sameynayaan subhanallah fircoon marka debate-ka lagaga adkaado ee wuxuu ku hadlay uu garan waayo marka dambe wuxuu leeyahay la ajcalanaka min almasjuuniin you will be in jail waan ku xidhaya
markii hadalkii oo dhan laga soo xidhay sidan dhag 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 ilaan waxa weeye haddaad maqasho waan ku xidhayaa iyo waan ku dilayaa waa qof waxba waayo sooma waa qof waxba ay u suuro geli weyd meel kalu sameeye mal markaasa nebi muuse wuxuu yidhi ima xidhi kartid ma dhihin waa fircoon lama dhihi karo ima xidhi kartid wuxuu ku yidhi awalow ji'tuka bishayin mubiin haddaan xataa evidences iyo proof haddaan keena may xidhaysa taasaa uga daran sooma ma dhihi karo haddaad evidences keento xataa waan ku xidhayaa ma dhihi karo sababto dadkaa ka tegaya markaasuu yidhi okay fa'ti bihi in kunta bal waa yahay keen waqtii markaa ushii iyo sheekadii ay bilaabato almuhim aad bay u fiican tahay qur-aanka qaabka gaalada uladooda iyo dhibeedkiisa inaad barato ilaahay wuxuu yidhi am khuliquu miyaa la abuuray nimankan ilaahay ma jiro min gayri shayin shay abuuray iyadoo uunan jirin shay la-aan miyaa la abuuray yacni mid abuuray oo khaaliqa iyadoonan jirin miyaa la abuuray yani miyay iska abuurmeen wey am hum lkhaaliquuna mise iyagaa naftooda abuuray labadaa midna ma jirto am khalaquu mise waxay abuureen asamaawaat cirarka iyo walarda dhulka cirka iyo dhulka miyay abuureen waa maya bal laa yuuqinuuna aayadaha ilaahay iyo waxdaaniyada ilaahay ma yaqiininayaan oo ma rumaynayaan am cindahum khazaa'inu rabbika am hum lmusaytiruun am cindahuma waxaa agtooda ah oy haystaan khazaa'inu rabbik rabbiga kaydadkiisa kaydadku waa treasharka weeye nicmada ilaahay meelaha lagu haya lagu kiibgareeyo ee lagu hayo mayaga haya oo qofku doonuu ilaahay rasuul ka dhigi qofku doonuu malag ka dhigi kuu doonuu riich ka dhigi kuu doonuu power ka dhigi kuu doonuu caqli badan siin kuu doonuu caqliga iyo cilmiga ku yarayn kuu doonuu cimriga u dheerayn khazaa'inta ilaahay ee kaydka ilaahay wax ku kiibgareeyo mayaga haya ilaa waxay dhihi jireen aayaddan waxay u jawaabaysaa iyaga waxay dhihi jireen wiil agoona sidee rasuul looga dhigay odayaashii iyo ugaasyadii iyo eldariskii iyo duqaydii baa joogtee wiil agoona see buu rasuul ku noqonaya waatay dhihi jireen waqaaluu lowlaa nuzila hada alqur'aanu calaa rajuli min alqaryatayni cadiim maxaa wiilkan yar rasuul looga dhigay ma odayaashii quraysh iyo eldariskoodii rasuul laga dhigo maki iyo daa'if odayaashooda taasaa marka waxaa la leeyahay am cindahum ma waxaa agtooda ma iyagaa haya khazaa'inu rabbika khasnadaha rabbiga khasnaduhu waa meelaha wax lagu kaydiyo ee khayrka iyo nicmada iyo barwaaqadu taallo ee lagu kaydiyo am hum lmusaydiruuna mise iyagaa xoog ku qabsaday kaydka ilaahay ma kaydka ilaahay iyo meesha ilaahay wax ku kiibgaraynaya baa la siiyey mise iyagaa xoog ku qabsaday musaydiriintu waxa weeye ma iyagaa saydareeyey oo xoog kula wareegay oo xoog ku qabsaday ilaahay khayraadkiisii iyo nicmadiisii iyo barwaaqadiisii am lahum sulamun yastamicuuna fiihi falya'ti mustamicuhum bisulطaanin mubiin ayaddan waxay ka hadlaysaa waxaa la leeyahay ilaahay iyo malaa'igtiisu waxyaabaha ay ku wada hadlayaan ilan ilaahay malaa'igta message buu usoo dhiibaa markaasu wuxuu dhahaa sidan yeela sidan yeela sidan yeela waxaa sameeya adduunka waxaa gaadhsiiya waa messengers of allah iyaga marka fariimaha wada marka waxaa la leeyahay fariimaha ilaahay uu malaa'igta usoo dhiibo ma intay jaranjarooyin qaateen oy samada aadeen bay markuu ilaahay malaa'igtan la hadlayey ee messageka u dhiibayey miyay dhegaysteen so waxay hayaan proof waxyaabaha dhici doona iyo siduu ilaahay wax u maamulo miyay ogyihiin hadday tahay yes waxay hayaan way dhegaysteen hadday tahay proof ha keenan inay dhegaysteen taasay aayaddu ka hadlaysa am lahumma waxaa u sugnaaday oo ay haystaan sullamun jaranjaro ay cirka ku koraan oo yastamicuuna ay ku dhegaystaan fiihi sulamka dhexdiisa sulamka waa jaranjarada wax lagu koro marka ma jaranjaro ay samada ay koreen oo ilaahay iyo malaa'igtiisa dhegaysteen ayay haystaan hadday tahay yes falya'ti ha keeno ha la yimaado mustamicuhum koodii dhegaystay warka ilaahay ee malaa'igtu warka ilaahay iyo ay isu sheegayaan dhegaystay bisuldaanin ha keeno evidences iyo proof mubiinin oo cad xujo ha keeneen argumentigooda ha xoojiyeenoo wax evidences ha keeneen ilaahay iyo malaa'igtiisu markay wada hadlayeen inay maqleen oo ilaahay waxyaabaha adduunka uu ka damacsan yahay iyo maamulkiisa ay la socdaan bal proof ha keeneen am lahuma waxaa u sugnaaday intaasoo dhan midna ma jirto wey sullamun jaranjaro miyay leeyihiin oo ay haystaan ay samada ku koreen oo yastamicuuna fiihi sulamka dhexdiisa ay ku dhegaystaan waxyaabaha cirka iyo samada ka dhacaya ilaahay adduunka ku maamulo ee malaa'igta usoo dhiibo falya'ti ha la yimaado mustamicuhum koodii dhegaystay malaa'igta iyo ilaahay farinta ilaahay uu soo dhiibay bisuldaanin xujaha keena mubiinin oo cad am lahu lbanaatu walakum lbanuun aayaddan waxay ka hadlaysaa saddex qolo
با إلهي وحي كشيغان تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا صدح قولا إلهي المؤشكت قرانك وقرانك كور رمي صدح ذا قولا وحي دهان وكريستانك وحي دهان مسيح ابن الله عيسى وويلك إلهي قولنا ويهود ووحي دهان عزير ابن الله يقولون وحي دهان أبناء الله عرورت إلهي بعنا waxaa cajiiba oo la yaab leh Cusayr iyo Ciise iyo ila Nabi Ciise wuxuu jiraa 2000 iyo imsa sano laga joogaa dhalashadii Nabi Ciise iyo dhowr iyo 10 sano 17 sano meelahaas Nabi Ciise isaga ka hor ilaan waad ogtahay inuu Nabi Ciise way ogol yihiin inuu waqtiga dhashay so before that ya adduunka ya ilaaha intuuna iman adduunka hadduu Ciise ilaah yahay before Ciise ya ilaaha kii waaga ilaahay ahaa adduunka maamulayba haddana ilaah Ciise waa rasuul ilaahay marka yahuudna waxay dhaheen Cusayr waa ilmihi ilaahay Cusayr ibn Allah bay dhaheen Quraysh ma aha Arab oo dhan nimankoodii gaalada ahaana waxay dhaheen al malaa'ikatu banatullah malaa'iktu waa gabdhihi ilaahay baa dhalay ta'ala lahu amma yaquluna uluwan kabir markii la yiraahdo yaa u dhalayna waxay dhaheen naag jina ayaa u dhashay ولذلك أرنتها وهي أرنتها كما رميس سورة الصافات وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا إلهي يجنك وحسوق درين كونكشن أسميان أو واحد هن ملائكة قبله إلهي ناقتنا أولى تايد كما رميس تاوي صدح هذا قربة آد بقرانك أوجا ورمي والله ردي مركزها واحد عجيبة وليبها يجو قريش أما نمك عرباد إلهي واحد هن قبله ليه waxa cajiiba wax aynan ilaahay oonan shaqo ku lahayn inay ku sheegaan haddana waliba waxay iyagu nacbaayeen inay ku sheegaan iyagu maxay nacbaayeen gabdhaha iyo wiilasha markay noqoto ilaahay gabdhaha iyo wiilal agtiisa waa isugu mid waa adoomadiisii way qof walba camalkiisu aakhira la tagaya gabdhuhuna wiilasha kama fiicna wiilashuna gabdhaha kama fiicna waa qof walba iyo camalkiisa aakhira wuxuu la tagay inna akramakum inda allahi atqaakum waa qofka cabsida badan ayaa ilaahay agti sharaf ku leh midabka iyo qofku wuxuu yahay iyo it doesn't matter marka waxa laakiin cajiiba ilaahay iyagu wixii ay nacbaayeen oo gabdhaha ilaahay gabdhaha way nacbaan watay xabaali jireen gabdhaha iyagoo nool bay haddana waxay dhaheen ilaahay baa leh su'aashu marka waxa weeye war waxaydan ogeyn ilaahay maxaad u siinaysan oo waliba waxaad nacbadeen maxaa u siinaysan haddana waan u tagi doonaa suuratu najm tilka idan qismatun biza waa qayb haddana ay ku jirto taas wey إلهي وحول أم له إلهي ما وحى أصقنا ذي البنات قبله ولكم إذن كان ما وحى لذيهن البنون ويلل إلهي قبليه ويلل من مال لكن واي أد قبلها إلهي أوصى ريح يسان ويلش إذن كيسوس سينا يسان معناها هي قبلها نعم أم تسألهم نبي ما وحد ويدي سنة يسان أجرا حوالم يد ويدي سنة أجر كوحى لولش هذا حد حوالي يا مال ما حول ويدي ما وحى كودي ديهن xoolaad ka urursatay waxa tiri lacag keena oo kharash isiiyo oo xoolo isiiyo ilan bini aadanku qofku si kasta oo u fiican yahay hadduu xoolo mar walba weydiisto yiraahdo war waxa isiiyo war waxa keena way ka kala cararayaan marka dambe sama way ka kala cararayaan waa dhab wey waxa laga yaabaa meeshan haddii maalin walba lacag la isku weydiinayo maalinka dambe jumcada dambe inaad ku soo tukan soo waa dhaqanka bini aadanka waa human nature wey bini aadanka sida ay dabeecadu tahay marka waxa lagu leeyahay waxay kaaga cararayaan ay ku diidan yihiin ما dhaqaalad weydiisato wax keena miyaad ku tiri so that is why ay kaaga cararayaan oo kaaga tagayaan maya nabigu xoolo ma weydiisan nabi walba wuxuu dhihi jiray wama as'alukum alayhi min ajrin xoolo idin kama rabo in ajriya illa ala rabbil alamin ilaahi baan wax ka rabo am tas'aluhum waxad weydiisatay ajr xoolo iyo dhaqaal oo fahum iyagu muthqaluna miyaa la cusleeyay min maghramin qaan iyo dayn ma dayn baad ku yeelatay oo xoolo qaanta waxa la yiraahdaa af Soomaaliga deynta qaan la yiraahdaa af Soomaaliga deyn waa Carabi laakiin af Soomaaliga qaan baa la yiraahdaa marka maqaan baad ku leedahay ma xoolaad ku yeelatay saad wax keena u lahayd miya isgaadhgaadhay oo iska bixin kari waayeen ma wixii bay intay bixin waayeen bay ka carareen ma wixii ba ku cuslaaday am tas'aluhum waxad weydiisanaysaa ajran xoolo oo fahum iyagu min maghramin qaan iyo deyn darteed miya muthqaluna lala cusleeyo oo iska bixin kari waayeen ma xoolaad weydiisatay kaaga cararayaan ومايا أم عندهم وحى أكتوضع الغيب علم الغيب وفهم يجو يكتبون ويقرأ علم الغيب كو وحيابها أن النوم وقنن ما يجا هيتاس أو ميل بيكو قريانو يجا كيب قرينا يا أو فايل أي أوجو قرينهن وحيابها غيب كأهم مقن
غيبك وحا كمدا وحاسا دعي دونا وحاسا لا إيمان دونا وحاسا دلان دونا وحاسا إيمان دونا وحاسا لواي دونا وحيابها غيبك إلهي أدونك كما أمره ما وحاسا يحيان يوم فيلاش أي غيبك كو قريهن ميا هيان أم عندهم وحا أكتوضا الغيب وعلم الغيب كإلهي ميا يقا أكتوضا أو فهم يو يكتبون ميا قرآن ما ميل بيكو قرآن لوح المحفوظ كميا يكو قرآن غيبك أم يريدون ما وحي دونيان كيدا شرقول وحي وحودي ديان ودن waa shirqool conspiracy miyay doonayaan iyo inay ku shirqoolaan taas dhab ah oo nabigeena shirqoolaan bay rabaan falladina kuwi kafaru gaaloobay hum iyaga ayaa almakiiduna la shirqoolaya yani shirqoolku waxa weeye waa plan aad qofka wax ku yeelayso plan qarsoon oo qofka wax ku yeelayso ayaa shirqool la yiraahdaa af Soomaaliga ma shirqool bay kula rabaan haddii ay shirqool kula doonayaan iyaga la shirqooli doonaa iyaga ilaahay wuxuu u dhigay plan iyo qorshe lagu waxyeeleeyo وهلاقيا أم يريدون ما وحي دون يان كيدا شرقول فالذين كوي كفروا قالوا بي هم إيجا المكيدون كوي لشرقوليا إيجا أي أدرنته أم لهم إله ما وحى أصلنا ذي إله معبود غير الله أون إله أهين ما إله أن إله أهين بإليه سبحان الله إلهي بحمان كان زهان أو حمان كفق سبحان الله إلهي نزهنان تيسا وكان نزهان يهي عما يشركون وحي إلهي وشريك يليا إلهي وكفق يهي وكان نزهان يهي شغالكم له وحي وشريك يليا وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركون وحي كتوسي سعيد صوصعتا سيدا عذابك إلهي أي آمن وقال نقضين حتى عذابك أركان وحي أرنها يا رب هي برواقع صوصعتا صوتا ما برهم يسنوا وإن يروا هذا أركان وأيضا نوتك دون صورة نمانكي ريهود النبي الله يهود قوم كيسي مركي لهلاقي رعد واذكر أخا عاد إذا أنذر قومه بالأحقاف جزء إنه قصة صعودة إن شاء الله دنبه كو أركي دونا إنا يدهن مركي هلاق قودي أي أركان بلا يصوى صعودة إنا يدهن هذا عار ممضرنا والرب إنا يدهن مركا إلهي وحوليه تبارك وتعالى وإن يروا هذا أركان كسفا قيب من السماء وسمد حق هذا كأهاتي سمد قيب كميدا أو كسو دميس هذا أركان أو ساقيدا صور دعية سمدي أو قيب كميدها أي كسو دعيسو هلاقة هذا أركان يقولوا وحي أورانها يان صحابا وضرور روب وضا أو مركوم الله يساساري ضرور الله يسكر ساري أو وين أو روب نوسي دوي يبي أورانها معنى هذا وحوي مرة ما يسنا منع من سنة ربي إنه وحيالي كرو أو عقابي كرو سيدا درتيد حقا كوري سمدا هدو عذاب كاقس صور نعو وحي أقاذنayaan ay odhanayaan waa roob iyo daruur roob noo wada oo makriga ilaahay iyo cadaabka ilaahay bay aamin ka noqdeen wa in yarow haday arkaan kisfan qaybtaas oo mina samaa samada xaggeeda ka timid oo saaqidan soo dhacaysa ama waxaad odhan kartaa kisfan qayb oo saaqidan ka soo dhacaysa mina samaa xagga samada qayb samada ka soo dhacaysa oo cadaabkoodii haday arkaan yaquulu waxay odhanayaan saxaabun waa daruur roob wada oo markuum la isa saaray ويستول صار روب بدن سيده فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون فذرهم اسكدا في النبي اسكدتك يعني هكون مشغول وحبا مرن كودا هذا الكودا هكون مشغول دعوه هذا وضه فذرهم اسكدا في اسكدتك حتى يلاقوا الى اي لكل مان يومهم مال كودا الذي مال كاسو فيه دحديس يصعقون الهلاقي صعقيga suuxdinta la laakiin hada waa dhimashada maalinka la halaagaya ilaa ay ka gaarayaan farax ka qaad ilaahay baa la xisaabtamay fa inma alayka albalaag wa alayna alhisab fadhakkir inma anta mudhakkir lasta alayhim bimusaytir adigana inaad gaarsiisaa ku saaran ilaahayna azza wa jalla isaga la xisaabtamay marka faraha ka qaad ha ku mashquulin dacwadaada wado waxba ku yeelimahayaan حتى يلاقوا إلى أي لكل مان يومهم مالن كوضة الذي مالن كاسو فيه الحديث يصعقون الهلاقي ومالن كقيامة أو مطر لبابين أما مالن كمثل بتيسي أي دعيس يوم مالن وي مالن كلا شيء لا يغني عنهم أونا وحبا أترين كيدهم شرقول كود خائن مضودي يدقرت هودي إيا شرقول كودي مالن كوحبا أترميس شيئا وحبا أمتريس ولا هم منا إنا أهان ينصرون كو الله إليه oo ilaahayna uma hiilinayo qof kale oo hiilinayana ma helayaan yawma maalin weeye maalinka la sheegayo laa yughni uunan ka taraynin canhum iyaga xaggooda kayduhum shirqoolkoodii iyo dhagartoodii shay-an waxba uma tarayso waxba kama tarayso
walaa hum yunsaruuna loona gargaari maayo oo ilaahayna u gargaari maayo qof kaloo u gargaarayaana ma jiro waina liladiina dalamuu cadaaban duuna dalik walaakina aktarahum laa yaclamuun waina liladiina kuwii waxaa u sugnaaday dalamuu dulmiga sameeyey dalamuu ay kafaruu kuwii gaaloobay ee dulmiga sameeyey waxaa u sugnaaday cadaaban cadaab cadaabkaasoo duuna daalika cadaabkaa aakhara ka sokeeya cadaab ka sokeeya cadaabka aakharo ayay leeyihin wuxuu noqon karaa cadaabka aakharo cadaabka ka sokeeya adduunka haddii la isku dagaalo inuu ilaahay ku jabiyo marar badan oo jab badan uu ku dhaco waa cadaab ilan jabkood inaad qaxdo ood jabto cadaab wey oo lagu jabiyo colkaagu ciidankaad is haystaan inuu ku jabiyo waa cadaab marka taa way noqon kartaa waxaa kaloo noqon kartaa cadaabka weyn ee naarta aakhare intaan la gaadhin cadaabka ka sokeeya qabriga lagu cadaabayo ilan qabrigu wuxuu leeyahay cadaab sida ilaahay uu yidhi tabaaraka wa tacaala annaaru yucraduuna calayha guduwan wacashiya ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وآخرون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا وعذاب القبر يقول سمعت مركب وإن عذابا دون ذلك عذاب كسك يا عذاب كي آخره وينا وأدون كأهلا كدعة أما الضبيلية ضوفان كدعان أما الجرير كدعة أما مسلمين تأيس هيين أي شبيان أما قبرك بلغو عذاب وعذاب كسوك يكي وينا يا آخر وين لبضو وإن للذين كوي وحا أسقنا ذي ظلموا قالوا بي ظلمك سميي عذابا عذابا أسقنا ذي ويأدونك يكون يهن قبرك با عذاب كاسو دون ذلك كا آخرين لغشك يكسوك ولكن أكثرهم بدن كوضو لا يعلمون مؤغا من رميسنا إن كمدوا الرميس ويجران أو دي صور رميس واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم nabigaa la sabirsiinaya calayhi salaatu waxaa la leeyahay dhibka kugu dhacaya u sabir hadallada ay ku leeyihiin u sabir oo waxa weeye ambiyadii ilaahay iyo rususha ilaahay sidaasaa loo dhibi jiray waxba waqti ha iskaga qaadina sabir qofku hadduuna sabrin meel ma gaadho ambiyadii ilaahayna sidaasay u sabri jireen waxaa nabiga lagu leeyahay wasbir nebi ow sabir lixukmi rabbika xukunka rabbigaa ku sabir xukunka rabbigaa ku sabir xukunka rabbigaa waxa weeye dhibka ku soo gaaraya waa xukun ilaahay ilaahay baa qadaray in lagu dhibo rususha ilaahay horena waa la dhibay ku sabirtaas hadallada aflagaadada ee lagu leeyahay waa qorshe ilaahay iyo qadar ilaahay u sabir iyadan wax kastoo kugu dhacana iyadana ku sabir lixukmi rabbika xukunka ilaahay sababta haddaadan sabrin maxaad samaynaysaa waxba ma qaban kartid qofku waa inuu sabra fa innaka laakiin nabiga waxaa la siiyey calayhi salaatu wasalaam waa promise ballanqaad ilaahay uu siiyey baa jira oo ah fa innaka adigu biacyunina waxaad ku sugan tahay ilaalintayada biacyunina xifdintayada iyo ilaalintayada anu ku ilaalinayna baad ku sugan tahay acyunina yani indhahayagaad ku sugan tahay baa ilahay yidhi muxuu ahaa laazimkeedna waa lagu fasiraa oo ah ilaalintayada indhahayagaad ku sugan tahay macnaha waan ku arkaynaa waan kula soconnaa waan ku protecti garaynaynaa wey taas wey marka isma diidayaano إلهي تبارك وتعالى صفة العين وليه الوليه إلهي وأكون نبي الله عليه الصلاة والسلام نبي الله عليه الصلاة والسلام مركو كهذا يا مسيح الدجال إلا الدجال إله بان هيبو ليه دوناي وحولي إلهي يا دجال اسمه شبهان صوتها دجال أعور وإلا إياه وإن ربكم ليس بأعور إلهي ما إلا سمرت مركا صفة العين ويجرتها حدو مركا قفكو كفصيرا فإنك بأعيننا إلى لنت يدا هداد كفصيرته adigoo diidan sifadii ilaahay ee ish adoo diidan tafsiirkaasi waa tafsiir bidca wey waana tafsiir khaldan oo lagu marin habaabinayo oo lagu inkirayo sifaadka ilaahay laakiin adigoo sifadii ilaahay ee isha rumaysan inuu ilaahay sifatul cayn leeyahay oo ilaahay il leeyahay adoo rumaysan il u qalantay inuu leeyahay isaga ku habboon haddaad laazimkeedii ku fasirto oo ah ilaalin iyo waardiyeyn iyo xifdin dhib ma leh sababto tanna waad rumaysan tahay wixii ka laazimayana waad ku fasirtay isma diidaysa marka isha ku haydi wey wasbir ku sabir nebiyow lixukmi rabbika xukunka rabbigaa ku sabir fa innaka adigu biacyunina ilaalintayada iyo dhowristayada iyo xifdintayadaad ku sugantay imise qorshe oo nebiga lagu dilaya baa la dhigay oo haddana ilaahay ka badbaadiyey tabaaraka wa tacaala habeenkii nebigu uu madiine aadayay hijroonayay waatay isku dayeen yacni inay si kasta ahaataba ay dilaan ilaahay baa ka badbaadiyey tabaaraka wa tacaala fa innaka biacyunina indhahayagaad ku sugan tahay annagaa ku ilaalinayna wey
وسبح تصبيح سو النبي سبحان الله ده بحمد ربك أذيقو كدريا حمدك إله أذيقو حمدك أنا كدريا سبحان الله وبحمده أذيقو أورانيا أذيقو حمدك أنا كدريا وسبح تصبيح سو بحمد ربك أذيقو كدريا حمدك ربك أو إلهنا كم هذنا الحمد لله أنا كدريا مركب وحي هذا يعني أجر بدن سبحان الله والحمد لله سبحان الله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ مذول ما بين مذول ميزان كي يقفك أبو حنيسة سبحان الله وبحمده ورضا نفسه وزنة عرشه سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وحيابها وحكمتها أجر كبدن أذكارته النبي كوشك عليه الصلاة والسلام وصبح تصبيح سوء وإلهي نزه وسبحان الله له بحمد ربك أذيق وحمدك ربك أنا كدريا حين وقتك تقوم أدستاغيس مركا أدستاغيسو إلهي أتصبيح سو كنا حمد واقور مركا أدستاغيسو أني تايم مركا فرددك استاغتو مركا يعني ذكرك إلهي بدي وي مركا صلاة كوشرتيد صلاة استاغيسو مركا فردي كاكعيسو مركا قوب لغو شيكيسان هي كاكعضو ولذلك كفارة المجلس النبي نوشي ذي عليه الصلاة والسلام وقفكو وحو النبي نوشي صلى الله عليه وسلم dadku markay meel fadhiistaan badanaa waxaa ka dhaca yani hadalla aan fiicnayn way kaftamaan way qoslaan way sheekeeyaan waxyaabaha ka dhacdhaca aan 100% aan sax ahayn waxaa la rabaa marka adkaar wuxuu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam waxaa jirta adkaar la yiraahdo kafaaratul majlis waxa weeye meeshii aad fadhiday dambigii ka dhacay bay ka dhaafaysaa marka aad meesha ka kacaysa hadaad akhrido majlis waa meeshii aad fadhiday hadaad adkaarta akhrisato markaad kacayso wixii khaladaad ahaa ka dhacay baa lagaaga dhaafaya وحوي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أنت قفك دها وحول النبي صلى الله عليه وسلم دنبقي كقد عيب ماشا أنتو فدي والله رافيا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك حين تقوم سمال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك يا كسو علني عبد رب يونس مكو علنيس مكو علنيس يوسف جدنك مكو علنيس أذكرت مكو علن كرتا أذكرتي عن شيء مكو علن كرتا good يوسف مايا مكو علن كرتا you wanna try مكو علن كرتا هاي منيرة مكو علن good صحوي واصبر كصبر نبي لحكم ربك حكمك ربك كصبر وحي دعي او دن الهي كو قدرو الهي كو حكميه كصبر فانك باعيننا كرنتيبو هيست النبي عليه السلام ان دهيغاد كسوغانتا وان كو ilaalinayna waan ku wardiinayna anaga ku xifdiyayna waxay lamid tahay ayadi wallahu ya'simuka min an-nas ilaahi baa dadka ka ilaalinaya wasabbih tasbihso وسبحان الله بحمد ربك أذيقو كدريا حمدك ربك الحمد لله كدريا حين تقوم مركز استاغيس أما فردك ميل قوبك استاغيسو هردك استاغيسو صلاة استاغيسو ومن الليل هبينك قيب كمدنا فسبحه إلهي نزه هبينك قيب كمدنا إلهي نزه يعني هبين كينا إلهي حصوصه وصلاة الليل يطاعي عبادة إلهي كن نزه وإدبار النجوم حدقها الدبضوضنا حدقهم مركز دعان أي دبتش هديانا إلهي نزه يدنا يعني waxaa laga wadaa waa waqtiga suxuurta way xidigu markay daba jeediyaan labadaba way noqon kartaa xidigu goormay dhacaan idbaaru nujum waa xidigu markay dhacaan xidigu markay waxay dhacaan salaada subax wax yar ka hor ama markay salaadu dilaacayso waxa soo galaysa marka way idbaaru nujum xidigu markay dhacaanna waxa soo galaysa salaadii subax inaad ka dadaasho waxa kale oo soo galaysa waqtiga dambe ee habeenku si dhamaanaya salaatu leeyl inaad u kacdo oo ilaahay xusuusato oo wardido وذكرت أخرسته وذ ربي تبارك وتعالى قعمها وتاجته سبته وقت عجيبه ووقت إلهي دعاء أقبله صلاة الصبح كهر أنت ينادي الله عن قفني أنتو استاجو قل كيس إلهي كبر يوم قعمها تاجته صلاة الليل كذا وحور الرباء خير إلهي وصينا يا تبارك وتعالى وصعد إلهي وسودك هبينك مركي صدح ميلاد أي كهر سنتها 1/3 هبينك بو إلهي سماده سوكين تو سودك وحول هذا ورياي بري يوم أجيبه وريا دم بدافع ويدي سنة يوم دم بدافع وهبينك استبوا النبي عليه الصلاة والسلام marka waqti cajiib oo qaale ومن الليل هبينك قيب كمدنا فسبحوا إلهي وتصبيحصو iyo وإدبار النجوم حدقها markay daba jeediyaan yani markay ay dhacaan salaadu sii dilaacis
markaana ilaahay xusuusnow oo ilaahay caabud oo ilaahay u tasbiixso tabaaraka wa tacaala. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.